xafladda qaybteedii hore ayaan ku jirnaa weli khudbadihi ayaa noo socda haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofonka danjire ambassador Asad Caalin falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii afraad ee galmudug waxa weeye dadka xafladda ka soo qaban qaabiyay iyo dadka soo qayb galay waa mahadsantihiin anigu madaxdii soo casuuntay waxay iga dalbadeen inaan khudbad u soo diyaariyo ku saabsan isdhexgalka Soomaaliya waxa weeye galmudug waa deegaan Soomaaliya kamid ah waxayna u socotaa inay Soomaaliya sharafteeda ilaaliso inay Soomaaliya amnigeeda ilaaliso inay Soomaalimada soo celiso inay dhaqankii lagu yaqaanay ee magaalooyinka ay taqaaneen Dhuusamareeb gaalkacyo hobyo hardheere ceeldheer intaas ceelbuur inta dadka Soomaaliyeed ee maanta Soomaalida ku faanay waa meesha ka wada yimaadeen iyagoo kala ah kala qabiil kala dhaqan kala nooc marka waxaad ogaataan dhalinyarada 30 sano kadib dhalatay ee caaw goobtan joogta oo aan wax badan ka aqoon waa noocee ceelbuur waa noocee ceeldheer waa noocee hobyo waa noocee gaalkacyo waa noocee Dhuusamareeb waa noocee caadaado ma garan karaan waxaan u garan kareen waxay arkeen xilli adag oo dadkii islaayay oo dadkii kala tageen oo dadkii kala dhinteen oo dadkii isnaceen marka ilaahay waxaan u baryaynaa in qoomiyadda Soomaaliyeed ay federaalku u noqdo marka kali ah ee dadka Soomaaliyeed ee deegaamadooda dib ugu noqonayaan ay soo celinayaan xoolihii ay soo celinayaan ganacsigii ay soo celinayaan beerihii ay soo celinayaan amnigii ay soo celinayaan dhaqaalihii annagu waxaanu nahay jahliyadda Soomaaliyeed ee Finland ku nool halkan waxaan isugu nimid inaan sharafno xafladda galmudug annagoo aasaas ay noo tahay islaamnimo annagoo aasaas noo tahay Soomaalinimo annagoo aasaas noo tahay ehelnimo habeenay maalin baan kala guursanaa habeenay maalin baan is-aasnaa habeenay maalin baan quraan isku akhrinaa marka waa inaad ogaatiin dadka maangaabka ah ayaa waxay u haystaan Soomaalidu inay kala tagtay Soomaalidu ma kala tagin everyday qoys baan abuurnaa ka kooban Soomaali oo dhan marka waxaad ogaatiin dadka Soomaaliyeed ee xafladdan galmudug ka soo qayb galay inay ku faanaan markii guryahooda tagayaan caruurtooda u sheegaan inay Soomaaliya tahay galmudug inay Soomaaliya tahay Somaliland inay Soomaaliya tahay Puntland inay wax loo socdaa tahay amni nabad iyo horumar waxaan kaloo doonayaa dhalinyarada halkan joogta waxa kali ah oo wadanka Soomaaliya wax looga bedeli karaa waa waxbarasho waxbarashadu waxay yaraysaa discriminationka heebsooc yaraysaa waxbarashadu waxay yaraysaa caasinimada waalidka waxbarashadu waxay yaraysaa qofka wax barto mataqaana la dagaalanka mataqaana deegaanka la burburinayo waxbarashada la barta waxay yaraysaa in aad fahantid qofka ehelka ku ah iyo qofka ehelka ku ahayn anigu qubadda kuma sii dheeraanayo waxaan markasta rajaynayaa haddaan galmudug nahay Soomaali baan nahay haddaan galmudug nahay islaam baan nahay haddaan galmudug nahay waxaan matalaynaa dhammaan Soomaalida Finland wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh